kusoo dhawaada waa cashar maanta sharaxaadiisa barbilow ka dhigi doono waxa weeyaan monitoring and evaluation waa M&E ayaynu casharkiisa sharaxaada bilaabi doonaa oo casharkii koowaad noqon doona M&E waa monitoring and evaluation amba M&E wuxuu ka kooban yahay input iyo output iyo outcome iyo impact. Input oo maxaa tahay, output oo maxaa tahay, outcome oo maxaa tahay, impact oo maxaa tahay. sida halka ka muuqata xagga hoose waxa ka muuqda impact iyo outcome iyo output. Impact waa long vision amba waxa weeyaan mustaqbalka fog muxuu saameyn yeelanaya ashan wixii aad qabanaysay impact maxaa saameyn ka dhalanaysa amba maxaa saameyn u yeelanaya. Outcome waxa weeyaan change isbedelka ku imanaya waxa weeyaan behavior haday tahay skills oo kale haday tahay knowledge oo kale. Outcome wuxuu ka sheekeynaya waxa weeyaan isbedelka ku imanaya wixii la qabtay marka tusaale ahaan in output oo noqonaya output ku waxaan 10 ba maanta lagu dhigay amba knowledge amba training ba lagu qabtay amba waxba lagu dhigay skills ba lagu baray deetana xirfadii markaad dhigato ama trainingkii lagu qabtay markaad barato maxaa ka imanaya iska faa'iideysa wixii aad baratay wixii aad ka faa'iideysay isbedelkii ku imanayay ayaa outcome xagga sare waxa ka muuqda interview in the launching oo noqonaya performance indicator information. Performance indicator information waxa hoos marin indicators oo noqonaya indicator waa variable-ladii amba variable-ka noqonaya iyo indicator definition isla qeexitaanka definition-ka indicator-ka iyo baseline oo noqonaya barta ka bilaamayay amba noqonaya basic ama meesha ka bilaamayay performance indicator information kala doonaya iyo target-ku halku target-ku ahaa ayaa ma garanaysaa ka xiga. intaas waxay hoos imanayaan waxa weeyaan information-ka qaybta performance information-ka hoos imanayaan. Data collection ayaa ka xiga. Data collection planning waxa hoos imanaya sources xageed ka soo qaadanaysaa iyo method-ka isticmaalaysay iyo frequency schedule iyo personal responsibility waxa hoos imanaya isagana sources-kan xageed ka soo qaadayso xogtan method-kaad isticmaalaysaa iyo frequency schedule-kaad isticmaalaysaa amba frequency-gan inta leeg buu soo noqnoqday oo kale. Personal responsibility yaa mas'uuliyadda qaadaya labada qaybood ayuu sharaxaynaa maanta waa performance-ka iyo data collection-ka. waxaan raacaynaa ku sii daraynaa waxa weeyaan data using planning oo isagana hoos iman information uses yaa isticmaalaya xogtan iyo audiences ciddii dhegeystayaasha ka hayd amba ciddii matalaysay. sidoo kale waxa kamid ah audienceska dhegeystayaasha kamid ah waxa kamid ah banner-ka kale ayaa soo galaya. marka halka shaxba shaxdan bannaan bin marka ku base gareyn doonaa aynu ka shaqeyn doonaa M&E-da impact-ga outcome-ka iyo output-ka inaga performance-ka oo ka kooban indicators iyo indicator definition iyo baseline iyo target bixinayna sidoo kale data collection plan-ka inaga bixinay sources iyo methods iyo frequency schedule iyo personal responsibility iyo data using planning bixin doona information iyo audiences. marka waxaan isticmaali doonaa qaybtan hoose ayaynu isticmaali doonaa waynu ku bixin doonaa xogaha sida loo bixinayo M&E sida loo bixiyo lagu sameeyo
schedule-ka in Excel planning-ka lagu sameeyo qaybta Excel-ka lagu sameeyo